dadkan Soomaaliya madaxda ka soo doonay waa dad dufan raadis hadda maalin dawlad madaxweynuhu wuxuu yiri war aniga nin baahan hadda kadib yaan la keenin aniga hadda meel fiican iyo mar way dhirgi rabaa nin baahan yaan la keenin adiga tuuganimo ma dhirigle inaad waxado laga dhirgi ma dadana waa igu sheekay marka wuxuu yiri gaalada wada sanamay qabaano maxaa yeelay waxa waaye inay xaggooda soo marta bisay rabaan waxay arkaanba inay soo leexiyaan hadda marka waxaana la ka rabaa marka sida adduunka lagu yaqaanana sideeda markaad hoggaan u imaaha amba ciidan uu ka yimaada oo nin ciidan oo sargaal saraa hoggaanka naqda ama ahzaab uu ka yimaada ama civil society uu ka yimaada oo ruma Soomaaliya waxaad ogtiin civil society-geedu mid kuwana waxay ka yimaadaan reer galbeedkay la shaqeeyaan kuwana carabtay ka yimaadaan kuwa carabta waa kuwa hadda naqabsaday oo timir kuwa kalena waa aragteeno iyagana ma taqaanaa waa kuwa oo faleebooyinka iyo gata marka civil society-gu halkaasoo maraa marka kuwan aad arkaydin civil society Soomaaliya waxa uu qabatay idoo la dhaha soo arkay ma jirin waa in caalamka uu leeyahay civil society-ga ayaa loo baahan yahay meesha itaalmaya la ogaado ahzaabtina waxaad ogtiin Xasan Sheekh inuu si itaalwaay aan uga saxiixna maalin dhow madaxweyne ra'iisul wasaarahan hore maxkamad ugu geynay si itaalwaay oo golaha shacabka ugu gudbi kana wuxuu aragay taariikhda waxaan dhahnay oo dad ugu farna war adiga hadda waa tagtay taariikh waana ku naqato adiga ee iska saxiix hadda ilaan sideeday ku socay asigana hadda uu saxiix wixii hadda ka dambeeya marka 4 sano wixii ka dambeeya waxaad ogtihiin Soomaaliya marka ahzaabtaas ma tabaxaysa qabiilkii waa ka soo saarna 4 sano naftan agdhigan marka 4 sano hoggaan loo rabaa marka Soomaaliya siday qof iyo codkiisa u naqad hadda waxay ku doodayaan maalin walba kontii ku saal lacag loola gaarahay kullee kontii kuudiya la bada waxayna qof iyo codkiisa in diideen uga soo naqadarteeda in u raadiyeen kontii kuudii hadda waxa laga bedeli laayahay dawladda Itoobiya tiri anaga in garansiya ka ah in garansiyada markay isu tagaan waxay leeyihiin in garansiyaha Itoobiya ka ahsan yeelin shacabka Soomaaliyeedna in garansiya ma dari hal mar ma fiirinayaan qiimaha ay ku fadhiyaan aad u mahadsantiin marka ku soo dhawaada magaaladiini ilaaliya hadda in garansiyada Itoobiya aan qodeena ka ilaalino ana ma taqaana kontii kowdaas inay soo saaraan xildhibaano sharafyo karaamo leh aan ka shaqeyno aad u mahadsan